sheekada geerida Diego Maradona ma ahayn oo kaliya dhimashada halyey kubadda cagta ah, waxay ahayd dhacdo galgashay Argentina iyo caalamka isboortiga. Geeridiisa waxay dhalisay muran, eedeymo culus iyo su'aalo weli taagan. Maxaa dhab ahaantii ku dhacay Maradona? Muuqaalkan waxaan ku eegaynaa xaqiiqooyinka ku saabsan saacadihii ugu dambeeyay ee noloshiisa iyo murnadii ka dhashay geeridiisa. Hase yeeshee is-xasuusin, ha ilaawin inaad like saarto muuqaalka, channelkana subscribe dhahdo si aan u gaarno 5,000 oo subscribe. Mahadsanid. Aanu sii gudagalno muuqaalkeena. Diego Armando Maradona ayaa geeriyooday taariikhdu markay ahayd 25 November 2020, isaga oo da'diisu ay ahayd 60 sano jir. Geeridiisu waxay timid dhowr toddobaad oo kaliya kadib markii uu galay qaliin degdeg ah oo dhanka maskaxda ah, kaas oo looga saaray xinjirow dhiig. Sababta rasmiga ah ee dhimashadiisa ayaa lagu sheegay wadne istaag degdeg ah, kaas oo yimid xilli uu ku sugnaa gurigiisa oo ku yaalay agaarka magaalada Buenos Aires ee dalka Argentina. Inkasta oo caafimaadkiisa uu dhowrkii sano ee u dambeeyay uu aad u liitay, haddana warkan wuxuu naxdin weyn iyo kadis ku noqday malaayiin taageerayaal ah oo adduunka daafihiisa ku kala sugnaa. Geeridiisa ayaa calaamad u ahayd dhammaadka cutub ka mid ah cutubyada ugu waaweyn uguna saameynta badnaa taariikhda ciyaaraha adduunka. Madaxweynihii dalka Argentina ee xilligaas, Alberto Fernandez, ayaa ku dhawaaqay 3 maalmood oo baroordiiq qaran ah isla markii uu soo baxay warka geerida Maradona. Calanka dalka ayaa hoos loo dhigay si loo muujiyo ixtiraamka loo hayay halyeygii qaranka ee koobkii adduunka u soo hoyay sanadkii 1986. Kumanaan taageerayaal ah oo aad uga murugooday geerida Maradona ayaa isugu soo baxay waddooyinka waaweyn ee Argentina, kuwaas oo xirnaa funaanada lambarka 10 ee xulka Argentina iyo kooxda Boca Juniors. Aqalka madaxtooyada ee Casa Rosada ayaa loo furay shacabka si ay u macsalaameeyaan sanduuqa meydka ee halyeygooda. Tani waxay muujisay in Maradona uu dalkiisa u ahaa wax ka badan ciyaaryahan kubadda cagta ah, isagoo astaan u ahaa aqoonsiga qaranka Argentina. Baroordiiqdii taariikhiga ahayd ee Napoli. Magaalada Napoli ee dalka Talyaaniga oo ahayd goobtii uu Maradona ka sameeyay taariikh aan la ilaawi karin, ayaa geeridiisa kadib isu beddeshay meel ay qabsatay murugo weyn. Taageerayaasha kooxda Napoli ayaa isugu soo baxay waddooyinka iyo fagaarayaasha magaalada si ay u xusaan halyeygoodii. Qaar waxay shideen shumacyo, qaarna ubax ayay dhigeen, halka kuwo kalena ay ilmeynayeen iyagoo muujinayay murugada geerida Maradona. Jawiga magaalada wuxuu ahaa mid aamusnaan iyo murugo isku dhafan, waxaana muuqanaysay sida ay u adkeyd inay sagootiyaan halyeygoodii si loo maamuuso waxqabadkiisii cajiibka ahaa. Garoonkii kooxda Napoli ee markii hore loo yaqiinay San Paolo ayaa si rasmi ah loogu bedelay magaca Diego Armando Maradona Stadium. Dadka reer Napoli, Maradona wuxuu uga dhignaa wax ka badan halyey kubadda cagta ah. Wuxuu u ahaa astaan rajo, sharaf iyo hogaamiye, qof ay weligood qalbiyadooda ku hayn doonaan. Waddooyinka magaalada waxaa lagu qurxiyay sawiradiisa, ubaxyo iyo fariimo xusuus ah, taas oo caddayn u ahayd in magaca Maradona uu weligiis ku noolaan doono qulubta dadka reer Napoli. Murankii caafimaad iyo baaritaankii sharciga ahaa. Geerida Maradona kadib waxaa isla markiiba dhashay shaki weyn oo ku saabsan daryeelkii caafimaad ee uu helay ka hor intaysan naftu ka bixin. Qoyskiisa, gaar ahaan gabadhiisa, ayaa ku eedeysay dhaqaatiirtii xilligaas gacanta ku haysay in ay ku kaceen dayacaad weyn oo dhanka shaqada ah. Baaritaan rasmi ah oo ay sameeyeen guddiyo caafimaad oo ay magacowday maxkamaddu ayaa lagu ogaaday in daryeelka caafimaad ee Maradona uu ahaa mid aad u liitay oo ka hooseeyay heerkii loo baahnaa. 7 xirfadlayaal caafimaad ah oo isugu jiray dhaqaatiir iyo kalkaaliyaal oo ku jiray dhakhtarkiisii gaarka ahaa Leopoldo Lukwe ayaa lagu soo oogay eedeymo la xiriira dil aan ula kac ahayn.
Baaritaankan oo si qoto dheer loo sameeyay ayaa dib u eegay maalmihii ugu dambeeyay ee nolosha Maradona, isaga oo su'aal ka keenay daryeelkii caafimaad ee uu helay xilligii uu sida weyn ugu baahnaa caawimaad degdeg ah. Falcelintii halyeeyada kubadda cagta. Geeridii Maradona waxay ruxday dhammaan ciyaartoyda caanka ah ee hadda iyo kuwii hore, kuwaas oo fariimo dareen xambaarsan soo dhigay baraha bulshada. Pele, oo ay muddo dheer xifaaltami jireen laakiin saaxiib dhow ahaa, ayaa qoray hadal taariikhi ah oo ahaa: "Waan weynay saaxiib qaali ah, maalin maalmaha ka mid ah waxaan rajaynayaa inaan cirka dhexdiisa kubad ku wada ciyaari doono." Lionel Messi ayaa isna muujiyay in Diego uu yahay mid aan dhimanayn oo weligiis nala joogi doona sababo la xiriira waxyaabihii uu kubadda cagta u qabtay. Cristiano Ronaldo ayaa isna ku sifeeyay mid ka mid ah saaxiriintii ugu waaweynaa ee abid kubadda cagta soo mara. Dhammaan ciyaarihii caalamka ee dhacay asbuucaas waxaa lagu bilaabay 1 daqiiqo oo aamusnaan ah si loo ixtiraamo xusuustiisa. Sagootintii ugu dambeysay ee Maradona kadib markii 100 kun oo qof oo ay ku macsalaameeyeen aqalka madaxtooyada Argentina, waxaa la gaaray waqtigii loo qaadi lahaa aaska halyeyga, maadaama ay jireen isku dhacyo yaryar oo ka dhashay tirada badan ee dadkii doonayay inay arkaan sanduuqiisa. Qoyskiisu waxay go'aansadeen in aasku noqdo mid kooban oo gaar ah. Maradona waxaa lagu aasay xabaalaha Jardín Bella Vista oo ku yaala bannaanka magaalada Buenos Aires. Waa isla goobta ay ku aasan yihiin waalidkiisii uu aadka u jeclaa, Dona Tota iyo Don Diego. Munaasabadda aaska waxaa ka qayb galay oo keliya qoyskiisa ugu dhow iyo saaxiibadii uu sida weyn ugu kalsoonaa, si loo ilaaliyo xasilloonida iyo asturnaanta daqiiqadii ugu dambeysay ee sagootinta halyeyga. Dhaxalkiisii ciyaareed iyo koobkii adduunka ee 1986. Geeridiisa kadib, dunidu waxay dib u xasuusatay waqtiyadii cajiibka ahaa ee uu Maradona ku soo bandhigay garoonka dhexdiisa, gaar ahaan koobkii adduunka ee 1986. Sanadkaas wuxuu noqday xilli dahabi ah, isaga oo si weyn u hogaamiyay xulka Argentina, kuna hogaamiyay guul taariikhi ah oo ka dhacday dalka Mexico. Ciyaartii caanka ahayd ee Argentina iyo England ku dhex martay wareegga 8 ayaa weli ka mid ah kulamadii ugu xusuusta badnaa taariikhda kubadda cagta. Kulankaas, Maradona wuxuu dhaliyay 2 gool oo dunidu weligeed xusuusan doonto. Goolkii ugu horeeyay oo taariikhda kubadda cagta ku galay magaca gacanta Ilaah wuxuu noqday mid ka mid ah dhacdooyinkii ugu muranka badnaa ee abid la arko. Goolkii labaadna wuxuu ahaa farshaxan kubadeed oo aan la ilaabi karin, isagoo kubadda ka soo bilaabay meel u dhow khadka dhexe kana soo gudbay difaacyadii England ka hor inta uusan shabaqa ku hubsanin. Geeridiisu waxay dadka dib ugu celisay xaqiiqda. Inkastoo uu ahaa qof leh qaladaad bini'aadam, haddana hibadiisa iyo awooddiisa garoonka dhexdiisa ay ahayd mid aan caadi ahayn, taasoo ka dhigtay mid ka mid ah halyeeyadii ugu waaweynaa kubadda cagta adduunka. Dhaxalkii iyo hantidii uu ka tagay. Geeridii Maradona kadib, waxaa durba bilowday muran iyo dacwado sharci ah oo la xiriiray hantidii baaxadda weyneed ee uu ka tagay. Hantidiisu waxay ka koobneyd guryo, baabuur qaali ah, qandaraasyo xayeysiis oo malaayiin dollar ah, iyo xuquuqda isticmaalka magaciisa iyo sawiradiisa. Maadaama uu lahaa carruur badan oo ka dhashay xiriiro kala duwan, go'aaminta cidda si sharci ah u dhaxlaysa hantidiisa waxay noqotay arrin aad u adag. Maxkamadaha dalka Argentina ayaa ku lug yeeshay kiiska si loo xaqiijiyo dhammaan dhaxal sugayaasha sharciga ah iyo sida hantida loo qaybinayo. Murankan ayaa muujiyay in xitaa geeridiisa kadib, nolosha gaarka ah ee Diego Maradona ay sii waday inay dhaliso dood iyo isqabqabsi. Si kastaba ha ahaatee, inkasta oo murannadaasi jireen, haddana magaca Maradona wuxuu weli ku sii nool yahay qulubta malaayiin taageere oo dunida oo dhan, isagoo lagu xasuusto hibadiisii cajiibka ahayd iyo raadkii uu ku reebay taariikhda kubadda cagta. Midnimada taageerayaashii kooxaha iska soo horjeeday. Mid ka mid ah dhacdooyinkii ugu taabashada badnaa ee la arkay intii uu socday baroodiiqda Maradona
waxay ahayd midnimadii dhexmartay taageerayaasha kooxaha si weyn u xifaaltama taageerayaasha Boca Juniors iyo taageerayaasha kooxda River Plate oo ah labada kooxood ee ugu xifaaltanka adag Argentina ayaa hal meel isugu yimid iyagoo wada ooynaya geerida halyeygoodii. Muuqaalkaas wuxuu ahaa mid aad u naadir ah. Dad muddo dheer ku kala safnaa xifaaltanka kubadda cagta ayaa garab istaagay iyagoo wada lulaya calanka Argentina iyo sawirada Maradona. Ma jirin kala soc kooxeed ama muran, waxa kaliya ee la arkayay wuxuu ahaa murugo iyo ixtiraam loo wada siman yahay. Arrintan waxay mar kale caddaysay in Diego Maradona uu ka weynaa koox kasta iyo xifaaltan kasta. Wuxuu ahaa astaan qaran oo midayn karta dadka xitaa marka ay kala taageersan yihiin kooxaha ugu colaadda badan dalka Argentina. Geeridiisuna waxay dunida tusisay in jaceylka loo qabay Maradona uu ka xoog badnaa xifaaltan kasta oo kubadda cagta ka jiray. Saameynta bulsho iyo siyaasadeed ee geeridiisa. Diego Maradona ma ahayn oo kaliya halyey kubadda cagta ah, wuxuu sidoo kale ahaa qof si weyn uga dhex muuqday arrimaha bulshada iyo siyaasadda. Wuxuu si cad u muujin jiray aragtidiisa, gaar ahaan taageerada uu u hayay dadka danyarta ah iyo kuwa codkoodu aan si weyn loo maqal. Maradona wuxuu xiriir dhow la lahaa hogaamiyayaal ay ka mid ahaayeen Fidel Castro oo Cuba hogaamin jiray iyo Hugo Chavez oo ahaa madaxweynihii Venezuela. Xiriirkaas iyo mowqifyadiisa siyaasadeed ayaa ka dhigay qof si weyn looga hadalhayo kana baxsan dunida kubadda cagta. Dad badan oo ku nool Latin America iyo Koonfurta Talyaaniga waxay u arkayeen Maradona inuu ahaa codka dadka danyarta ah. Marar badan ayuu si fagaaro ah uga hadlay taageerada dadka saboolka ah, wuxuuna dhaliili jiray nidaamyada uu u arkayay inay cadaalad darro ku hayaan bulshada. Sababtaas awgeed, geeridiisa looma arkin oo kaliya luminta halyey kubadda cagta ah, balse sidoo kale waxay ahayd geerida qof saameyn ku lahaa bulshada iyo doodaha siyaasadeed ee dalal badan. Xusuusta joogtada ah ee garoomada iyo baraha bulshada. Geeridii Maradona kadib, sawiradiisa iyo muuqaaladiisa ayaa si weyn u qabsaday telefishinada iyo baraha bulshada ee dunida. Maalmo iyo bilo badan, warbaahintu waxay si joogto ah u soo bandhigaysay xusuustiisa, guulihiisii iyo saameyntii uu ku lahaa kubadda cagta. Kooxda Napoli ayaa dhowr kulan ku ciyaartay maaliyado gaar ah oo lagu sharfayay Maradona, halka ciyaartooy badan oo dunida dacaladeeda ka kala ciyaaraya ay goolashooda iyo dabaaldegyadooda u hibeeyeen halyeygan, iyagoo xitaa muujin jiray lambarka 10aad ee uu caanka ku ahaa. Sanad kasta marka la gaaro maalinta geeridiisa, dalal badan waxaa lagu qabtaa munaasabado xusuus ah iyo barnaamijyo dib u milicsanaya noloshiisii iyo guushiisii. Taasi waxay caddeyn u tahay in kastoo Maradona uu geeriyooday, haddana magaciisa, dhaxalkiisa iyo saameyntiisii kubadda cagta ay weli si xooggan ugu nool yihiin qulubta malaayiin qof oo dunida ku kala nool. Dhaxalkii uu kaga tegay taariikhda kubadda cagta. Geerida Maradona waxay dib u soo nooleysay doodihii ku saabsanaa qofka mudan in loogu yeero GOAT ama ciyaaryahankii ugu weynaa ee abid soo mara taariikhda kubadda cagta. Taageerayaal badan, ciyaartooy hore iyo falanqeeyaal badan ayaa weli aaminsan in hibadiisii dabiiciga ahayd, xirfadiisii aan caadiga ahayn iyo hogaamintiisii garoonka ay ka dhignaayeen mid ka mid ah ciyaartoydii ugu waaweynaa ee abid dunidu aragto. Geeridiisu waxay calaamad u noqotay dhammaadka safarkii nololeed ee halyey si weyn u bedelay taariikhda kubadda cagta. Hase yeeshee, dhaxalkii uu ka tegay weli wuu nool yahay, wuxuuna sii wadaa inuu dhiirigeliyo jiilal cusub oo ku haminaya in ay gaaraan heerkii uu Maradona gaaray. Magaciisa waxaa lagu xardhay bogagga dahabiga ah ee taariikhda kubadda cagta, waana magac ay adag tahay in waqtigu tirtiro. Taasi waa sababta Diego Maradona uusan u ahayn oo kaliya halyey hore, balse uu weli ugu mid yahay magacyada ugu waaweyn ee dood kasta looga yeesho
ciyaaryahankii ugu fiicnaa ee abid soo mara kubadda cagta. haddaba saaxiibayaal, waxaa intii noogu eg muuqaalkeena. intaan ku kulmi doono muuqaal kan la mid ah, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.